saddex bilood kadib ayay golaha wasiirada golaha madaxtooyada maamulka Khaatumo waxa ay isugu yimaadeen shir markaasi la isku xog wareysanayo kaasoo ujeedkiisu ahaa isxog wareysigii saddexdii bilood ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatumo ay jirtay waxyaabihii u qabsoomay iyo waliba sidoo kale waqtiga soo socda waxyaabaha ay hiigsanayaan amaba u qorshaysan shirkan oo muddo 12 maalmood socday isla markaasna inta badan ay saxaafadu dibad joog ka ahayd ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo markaasna afayeenka maamulka Khaatumo Cumar Jaamac Suleemaan oo markaasi uga warbixiyay saxaafada isla markaasna uu u sharaxay war saxaafadeed ka soo baxay muddadii uu shirkaasi soconayay go'aanadii ka soo baxay kalfadhigii labaad ee shirkii wada tashiga golaha xukuumadda Khaatumo waxa uu bilowday taariikhdu markay ahayd 12 bishii Afraad 2012 waxa uu dhamaaday 13 bishii Afraad 2012 waxyaabaha looga wada hadlay waxay ahaayeen arrimaha maamulka siyaasadda horumarinta dhaqaalaha iyo amniga dood dheer iyo wada tashi kadib golaha xukuumaddu waxay go'aamiyeen qodobadan hoos ku qoran qaab dhismeedka wasaaradaha laba magacaabista iyo ansixinta xubnaha guddiga dastuurka saddex ansixinta xisaab xidhka iyo miisaaniyadda saddexda bilood ee la soo dhaafay iyo saddexda bilood ee soo socda ansixinta xeerkooda shaqaynta golayaasha dowladda wabillahi tawfiiq geesta kalena wasiirka arrimaha gudaha iyo waliba wasiirka maaliyadda ayaguna waxay warbaahinta uga warbixiyeen muddadii kulankaasi socday waxaan halkan fadhinay 12 casho oo labada gole ee golaha xukuumadda iyo golaha wasiirada ay fadhiyeen waxaanu eegnay ama ka hadlaynay qodobo muhiim ah oo ku saabsan maamulka qodobadii aanu isla garanay waxaa ka dhiibay afhayeenka maamulka Khaatumo si wanaagsan bay arrintaan maartay noogu dhamaatay waanu gabagabeynay maanta si wadana shaqooyinka kale ee aan meesha maamulku leeyahay ma ahayna waxaan u gudbaynaa markaa iminka sidii aan ugu qabsan lahayn shaqooyinka kale day to day ahaa ee maamulku qaban haddii u gudbaynaa shirkaasu jawi aad iyo aad u qurux badan buu ku socday kuna bilaabmay kuna dhammaaday wixii ka soo baxayna saxaafadda waa la geliyey oo ay ugu badnaayeen wada shaqaynta iyo qaabka wasaaraduhu u shaqaynayaan iyo sidii loo hawlgelin lahaa iyo xeerarkii lagu shaqayn lahaa oo dhamaystirkoodii iyo dhammaanba sidii maamulku uu guda iyo dibadba uga hirgeli lahaa oo loo gaarsiin lahaa meel walba oo Khaatumo leedahay taasaa loo fadhiyey muddo laga shaqaynayay hawshii loo idmaday maamulkana sideedii ayaa loo qabanayaa oo ay u socotaa taasana shaqada loo fadhiyay muddada ee ku saabsanaya runtii shirka iyaguna hadda socday muddo 12 casho ah waanu dib ugu eegaynay muddadii ay golaha xukuumaddu jirtay waxyaabihii noo qabsoomay iyo waxyaabaha cusub ee aanu doonayno inaanu hadda wixii ka dambeeya aanu qabsanno waxa weeyaan shirka ujeedadiisu intaas u ahaa iyadoo ay wasaarad walba wasaaradaha ka tirsan soo bandhigtay wixii ay qabatay iyo waxyaabaha aan u qabsoomin isla markaasna la isla qaatay wixii qabsoomayna in la qabtay wixii aan qabsoominna in hadda wixii ka dambeeya la geliyo dardar cusub iyo sidii waxyaabaha aan qabsoomin loo qaban lahaa oo loo dhamaystiri lahaa dhinaca kalena madaxweyne maxamed yuusuf jaamac ayaa isagu waxa uu isna sidoo kale ka warbixiyay muddadii shirkaasi u soconayay isagoo markaasna ka hadlay hadallo dhowaantan ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta waqooyiga Soomaaliya ee loo yaqaan Somaliland shirkayagii wada tashi shirkayagii shaqo ee loo socday muddada tan inuu guul loogu dhamaaday guusha haddaan yar sifeeyo waxa weeye guushana oo wixii khaladaad ah dhacay saddexdii bilood ee la soo dhaafay sixideeda kuwa soo socdana mustaqbalkana inaanu qorshihii aanu ku talageli lahayn ku shaqayn lahayn aanu dhisanno hadday tahay dhinaca waxqabadka iyo hadday tahay dhinaca nidaamka duwaliga ahba way jirtaa
in ama saxaafadaha qaarkood dibkii leeyahay maamulada tanaynu darisadanahay qaar ka mid inay saxaafadaha gasheen khaatumo way saysaa way kala tagtay way kala dareertay waxaan ama kuwa ha ahaadeen ama kuwa hadday doonaan deegaankan sool iyo sanaag iyo cayn u dhashay laakiin khaatumo ay dhadhan kale la yeelatay waxaan odhan lahaa dibkeeda leeyahay dadku bini'aadamku berigii hore waxay noogeen iyagoo badda ka kalluumaysteen dhul baad ka kalluumaysanaysaan berriga maxay ahayd dee berrina waynu ognahay kalluun laga soo qaban maayo haddii bidkeeda leeyahay waxaanu halkan idinka sheegaynaa inay intaasi jirin ma jirin waxaanu isugu nimi waxay ahayd kalfadhi xukuumaddu ay maxay ahayd hawsheedana ku wadato ku saxanayso sidii dowladdana ay u dhalatay 3 bilood ka hor January maxay ahayd dagaal baa la kowsaday dagaalkii baa la kala aaday maxay ahayd imika wixii laga bilaabo waxay noqotay sidii ay dawladna ugu shaqeyn lahayd difaacan u wada lahayd iyo xoreyn labadaba u wada lahayd xoreynta ka horeysay difaaca guntii iyo gunaanadkii waxaa shirkan soo afmeeray madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan oo markaasi isaguna sidoo kale ka warbixiyay muddadii shirku u soconayay iyo ujeedada shirkan ay isugu yimaadeen waxa kale oo uu mahadceliyay dhammaan shacabka deegaanada Khaatumo waxaana ugu hambaliyay kartida iyo waliba sida ay markasta heegan ugu yihiin maamulkooda Khaatumo sida aad la socotaan maalintii la magacaabay oo la dhisay maamulkan 2-3 casho ka bacdi ayaa dagaal ku bilaabay sidii hawsha iyada loo kala aaday oo difaaca dalka maxay tahay loo kala baxay baa loo kala maqnaa waxa laga maarmaan noqotay in la isu soo noqdo oo hawshii iyada ahayd ee xarunta caasimadda Taleex laga qaban lahaa in la isugu soo noqdo muddo 12 bari ayaanu halka ka fadhinay waa laga dooday mid buu ahaa qof waliba iyo wasiir waliba iyo wasiir xog waliba oo ra'yigiisa ka dhiibanayay wana sharamtaa waxay yiraahdeen maxay tahay meeshii Khaatumo khilaaf baa ku dhex jiro shirkooda khilaafaan baa loo qabtay bal kuwaas xagay noo soo maray maxaa khilaafkaya ka galay annaga iskhilaafayna haddaan iskhilaafno haddii uu jiri lahaa waxaan sheegayaa wax khilaafa haddii shaqo ay khilaaf ka dhigeen shaqo la qabanayo waxaan qabaa inay uun dacayadaha ka mid tahay iyo calool qushqushka lagu ridayo dadka la maqashiinayo waxaan walaalay idin sheegayaa wax khilaaf la yiraaho iyo wax isqabad la yiraaho iyo wax haba yaraatee nooca u sawiran oo meeshtan aanu isugu nima jiro shirkan oo in muddo soconayay ayaa maanta jawi farxadeed ku soo gabagaboobay iyadoo markii dambana ay dhammaanba mas'uuliyiinta maamulka oo markaas ay ka dhex muuqanayeen labada madaxweyne waa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Kraash iyo Maxamed Yuusuf Jaamac Xala Indhasheele ay markaas si wada jira sawirka loo yaqaan photo group ay u wada galeen iyadoo markaasna wajiyadooda laga dheehanayay farxad محمد عثمان عبد النور عاصمة maamulka Khaatumo State Taleex